maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisatay dhageysigii koowaad ee dacwad ciqaabeedkii loo haystay Xasan Xanafi Xaaji oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda Ugus isla markaana lagu soo eedeeyay dilalka ilaa iyo 5 wariye. gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Liibaan Cali Yarow ayaa ugu horeyn maxkamadda ka hor akhriyay eedda loo haysto Xasan Xanafi. ujeedo eedidku ah eedaysane Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan ina Maryam Saalin 28 jir ah ku dhashay Xamar degan Nairobi waxaa lagu eedeynayaa dembiga ah kacdoon hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka kuna xusan aayadda 178 suuratul baqara iyo aayadaha kale ah 33 45 suuratul maa'ida iyo qodobka 221 434/45 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida adigoo ka tirsan ururka al-shabaab una qaabilsanaa dilalka wariyaasha saxafiyiinta dilayna wariyaal oo fara badan wariyaashaas waxaa ka mid ah 1 marxuum Mahad Axmed Cilmi 11 bishii 8 2007 2 marxuum Ali Iimaan Sharmaake 11 bishii 8 2007 3 marxuum Saciid Tahliil Axmed 4 bishii 2 2009 4 marxuum Mukhtaar Maxamed Hiraabe 8 bishii 6 2009 5 marxuum Sheekh Nuur Abkey 4 bishii 5 2010 oo aad gacanta ku dishay adigoo afka ku duuban oo iska qarinayo ayaad baabuurka soo degsatay kadibna dishay waa marxuumka ugu dambeeyay waay kala sheegay waxaa lagu soo eedeeyay inaad ka tirsan tahay ururka soo horjeedo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo eedeeyay waxaa kaloo lagu soo eedeeyay in aad ka tirsan tahay ururka al-shabaab aan u qaabilsaneed dilalka wariyaasha waxaa ayada meeshan ku qoran in aad dishay 5 wariye ayaa meeshan kugu qoran ayaa lagu soo eedeeyay kadibna waxaa gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Liibaan Cali Yarow ku amray xafiiska xeeraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inay keenaan cadeymo dheer haddii ay ka hayaan eedda loo haysto Xasan Xanafi. maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa Xasan Xanafi ma lahan asbaab uu uga dambeeyo kuwii uu laayay ma lahan asbaab uu uga badbaado aayaadka iyo qawaaniinta lagu soo eedeeyay Xasan Xanafi xaq uma laha Xasan Xanafi shariicada islaamka inuu noolaado maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa Xasan Xanafi in lagu xukumo ciqaabta ay qabaan aayaadka iyo qodobada lagu soo eedeeyay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan inay waafajiso qodobadii aayaadka quraanka aan ku soo eedeynay ee kala ah aayadda 178 suuratul baqara aayadda 33 45 suuratul maa'ida qodobada 221 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la aqriyo qodobka koobaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waxaan maxkamadda ka codsanaynaa Xasan Xanafi Xaaji inay ku xukunto dil toogashaha maxkamaddu way maasan tahay sidoo kale maxkamadda waxaa iyaguna ka hor hadlay qareenadii difaacaya Xasan Xanafi oo iyaguna codsaday in loo eego Xasan Xanafi sifafaalaha dembiga fududeeya maadaama uu inta badan eedaha loo haysto qiraal yahay ugu dambeyntiina waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Liibaan Cali Yarow ku dhawaaqay inay maxkamaddu xiran tahay isla markaana dib loo dhigay ku dhawaaqista go'aanka maxkamadda.
iyadoona dib la isugu soo laaban doono wakhti kale eedda loo haysta xasan xanafi oo dacwadiisu iminka ay hor taallo maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya. xasan xanafi ayaa horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ugu xukuntay dil toogashaa. ha yeeshee xasan waxaa xukunkaasi ka qaatay racfaan, waana tan keentay in maanta mar kale ay kiiska dacwadda xasan xanafi